عليكم bari waxaa jiri jiray wiilkan yar oo ahaa ari jir wuxuuna raaci jiray arigan markay isaga arkaan waa ay u qayli jireen waa ayna jeclaayeen arigu waxa uu raaci jiray oday wuxuuna ka qaadan jiray lacag yar balse arigan ayaa waxa uu ahaa ari wiilkan yar marka ay arkaan arigoo dhani ay qayliyaan oo ay farxaan ridan waxay ka mid tahay ariga waxayna la fadhiisatay xanuun balse waxa uu weydiinayaa Ismaaciil yare maxaa ku helay rideedii aan jeclaayay waxa uu ka dareemay ridani in ay xanuunsanayso isla markaasna tabcaan tahay waxa uu u yimiday odaygii ariga u raacay waxa uu u sheegay in ay ridii ariga ka mid ka ahayd ay xanuunsanayso odaygii hore ayuu u soo raacay waxa uu eegay xaaladeeda balse waxa uu ku yiri wiilkii yaraa ridani waa ay gabowday hadda wixii ka dambeeyana wax caana lagama helayo marka waa in aan ka iibiyaa dadka hilibka qala wixii xilligan ka dambeeya aniga ay kharash iga rabtaa iyo daaweyn markaas waa inaan iibiyaa Ismaaciil yare ridan si gaar ah ayuu u jeclaa iyaduna sidoo kale waa ay jeclayd balse labadooduba waxa ay ka naxeen hadalkii markaasi ka soo yeedhay odaygii ariga ugu raacayay gurigan yar waxaa degan Ismaaciil iyo hooyadii waxa ay siisay hooyadii cashadii markii uu soo hooyday fiidkii balse Ismaaciil waa uu murugaysan yahay arrinkiina waxa uu la wadaagay hooyadii waxa uu yiri hooyo rideedii iido waa uu iga iibinayaa odaygii aan markaasi u raaci jiray ariga balse hooyadii waxay ugu jawaabtay hooyo inagu maxaan samayn karnaa kaliya shaqaale baan u nahay balse Ismaaciil hooyadii wuxuu ka codsanayay in ay wax u samayso isla markaasna ridaas la badbaadiyo si aan suuqa loo geyn isla markaasna aan loo qalin balse waxa ay tiri wiilkaygii inagu aan u shaqeynaa oo kaliya isaga ayaa wuxuu doono ku samayn karaa arigiisa xorna u ah waa uu seexday Ismaaciil markii uu seexday waxa uu ku riyooday ridii oo odaygii suuqa geynayo isla markaasna ka iibiyay nimankii ariga qalanayay oo ay tunka ku wataan sidaana ku qaateen oo ay leedahay ridii ibadbaadi Ismaaciilow waxa uu ku soo toosay Ismaaciil riyadii uu ku riyoonayay hurdadii ayuu ka soo kacay isagoo qayliyaya kuna leh rideedii iido hooyadii ayaa maqashay waxayna tiri wiilkaygii maxaa ku helay waxa uu u sheegay in uu ku riyoonayay ridiisi oo qayliyaysa isla markaasna kulay badbaadi Ismaaciil hooyadii waxa ay tiri hooyo xal baan gaadhaynaa aroorta bal iska seexo waa uu iska seexday waagii markii uu bariyay waxa uu yimaadeen odaygii iska lahaa ariga waxayna ku dhaheen Ismaaciil iyo hooyadii waxaan rabnaa in aad nadaymisid ridaas aad iibinaysid balse waxa uu ugu jawaabay ridani waa ay gabowday wax caanaana ma laha maxaad ka rabtiin balse waxa ay ugu jawaabtay Ismaaciil hooyadii wiilkayga farxadiisa ayaan eegayaa 2 sano ayaan ku gudi doonaa bil kastana wax ayaan ku siin doonaa waxa uu yiri waayahay haday saa tahay Ismaaciil waa uu farxay isagoo boodbooday ridiina waa ay soo kaxaysteen odaygii waa uu la yaabay waxa uu yiri dadkan maxay ka helayaan ridan gabowday Ismaaciil yare aad iyo aad ayuu u faraxsanaa markastana waxa uu siin jiray caws ay cunto markaasi ridu waxa uu ahaa mid la sheekaystay rida hooyadii ayaa u timid waxayna ku tiri wiilkaygiiyo maada shaqo kala lahayn ridan baad rabtaa markasta inaad wax afka ugu kurtid bal adigu waad is-ilowdee kaalayo wax cun ayay ku tiri hooyadii balse waxa uu ugu jawaabay Ismaaciil yare hooyo waa yahay riduna waxay ahayd mid xantaynaysa isaguna waxa uu ahaa mid markaasi ku faraxsan ridan iyo la jooga ay la joogto maalinkii xigtay Ismaaciil yare waxa uu tagay xeradiisii ariga si uu markaasi ariga u raaco balse halkaas waxa ku arkay odaygii ariga iska lahaa waxa uu ku yiri Ismaaciilow bal hadda sanad ayaa ka soo wareegay ridii aad iga iibsateen ma dhimatay balse Ismaaciil waxa uu ugu jawaabay maxay dhimani ridii waxay noqotay rid mucjiso ah caanaheedu ma dhamaadaan waxayna noo dhashay 2 caruur oo yaryar odaygii waa uu yaabay ma ridii gabowday taagta darna ayaa caana leh ilmana dhashay waa uu fajacay odaygii waxa uu yiri say ku dhici kartaa
galabtii markii uu Ismaaciil u yimiday hooyadii waxa uu ku hooyo wad murugsan tahay maxaa ku helay waxay ku tiri hooyo waxaan u murugsanahay odaygii nagu lahaa lacagta deynta ayaa ii yimiday waxa uu yiri waxaan rabaa inaan qaato ridaydii ama lacagtaydii aad maanta bixisaan waxa uu yiri Ismaaciil hooyo waqti ayuu nala ballamay say ku dhici kartaa inuu ballankii ka baxo halkees lacag ka keenaynaa waxa ay tiri Ismaaciil hooyadii hooyo waxay noqonaysaa inaan ridiisa siino iyo labada caruur ay dhashay Ismaaciil iyo hooyadii habeennimadii waa ay murugsanaayeen Ismaaciilna hurda waa ay ku soo dhici weyday waxa uu soo galay xeradii ariga waxa uu habsiiyay ridiisii iyadoo isagoo u sheegaya in beritoola laga kaxaysan doono isla markaasna uunan haynin lacag uu siiyo odayga deynta ku leh waxa uu lahaa waa laga kaxaysanayaa beritoole balse ridii ayaa gacanta qabatay Ismaaciil waa ayna jiiday waxa uu ku lahaa xilligan waa xilli dambe halkeedii hor socotaa wayna hor socotay waxayna ahayd mid markaasi ujeedo kale leh waa uu hor socday markii ay geedkii gaadhay waxa ay samaysay inay dhulka qodo Ismaaciil waxa uu ku yiri bal aniga ayaa ku caawinayay sug waxa uu soo qaatay gudin markaasi waxa uu ku qoday dhulkii waxaaba ka soo baxay dhulkii markii uu Ismaaciil waxoogaa qoday dahab fara badan waa uu yaabay Ismaaciil waa uu farxay waxa uu yiri alla hadda kadib waxa noqonayaa nin taajira la igamana ka qaadan doono ridiisiina sidii caadada ahayd waa ay xantaysay dadkii tuulada deganaa ayaa arrinkii gaadhay waxayna ogaadeen ridani inay tahay ri mucjiso waxayna ka sheekaysanayeen arrinkaas iyo odaygii ay markaasi ka iibsadeen waxayna lahaayeen odayga ariga leh ma auna ahayn inuu rida iska iibiyo wiilkii yaraa ridii waxay noqotay ri mucjiso waa uuna ku taajiray caano badanna waa ay yeelatay odayaashii oo sheekadooda wata waxaa maqlay odaygii markaasi adhiga uu raaci jiray Ismaaciil yare waxa uuna yiri say ku dhici kartaa waa in aan ridaydii ka soo kaxaystaa waxa uu yimiday xeradii adhigu ay ku jireen waxa uuna dhegta soo qabsaday ridii markaasi mucjisada ahayd Ismaaciil yare waxba mooga oo waa uu iska hurdaa odaygii waxa uu jiiday ridii isagoo meel cilaa la tagay oo kule haddii aad tahay ridii mucjisada ahayd aniguna waxaan u baahanahay sida Ismaaciil oo kale inaad isiisid dahab dhaqso hadda dahabisi aniga ayaa xaq kugu lahaa waxayna qabatay ridii gacantiisa isagoo markaasi ay jiidaysay waxa ay waday ridii waxay hoos keentay geed hoostii waxayna isku dayday inay dhulka qodo waxoogaa markii ay dhulka qoday waxa uu ku yiri odaygii aniga ayaa ka caawinaya ee jooji markii uu odaygii soo qaatay gudintii ee uu waxoogaa qoday uu cabaar qodayo waxa uu ku arkay meeshii dahab markaasi ku dhex jira godkii odaygii waa uu farxay waxa uu yiri waad mahadsantahay ridaydii waxa aan helay dahab aad iyo aad u fara badan balse ridii waxa ay joojin weyday dhawaq oo aad ay u qayliisay isagoo leh maxaa ka maqan maxaa la qayliysaa kule balse iyadu waa ay joojin weyday dhawaqay nimankan oo ahaa niman u shaqeeya boqortooyada tuuladaasi ayaa waxa ay maqleen dhawaqii markaasi qayliyeysay ridu waxayna ku soo baxeen odaygii oo haysta dahabkii markaasi waxayna isku dhaheen dahabkani waa dahabkii laga soo xaday boqorka waryaa halkeed ka keentay waxayna ku qabteen warmadii ay wateen isaga oo ku dhawaaqayay anigu waxa ay siisay rida anigu wax dambiya ma lihi balse waxa ay moodeen nin waalan warmari ayaa dadka dahab siisa ayay ku dhaheen ma waxaad noogu sheekaysaa ayaad weydi mise dad waalwaalan ayaad moodaysaa ridiina waa ay joojisay dhawaqii markii ay nimankii qabteen ninkii waxayna nimankii boqortooyada u shaqaynayay ninkii ku qabteen warmihii iyagoo geeyay xabsiga maadaama uu gacanta ku hayay siliskii markaasi laga soo xaday boqortooyada odaygiina sidaas ayuu ahaa mid markaasi lagu xidhay Ismaaciil iyo ridiisiina sidii ayay xor ku noqdeen oo ay ku faraxsanaayeen noloshooda cusub daawade sheekadeena maanta intan ayay ku eg tahay waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyow